waxaan leeyahay qabiil hadduu baaba'ayo meeshii lagu arki jiray caawa marayaan isaaq muuse biixi iyo isaaq waxay soo geliyeen dadka laga tirada badan yahay sida tumaalada iyo midgaha iyo waxa dhan iyo lafaha laga tirada badan yahay xagay soo geliyeen waxay soo geliyeen dagaalka laascaano aniga kiislaha caawa meesha meediyaha ka hadla ari cadeeyaan degana nin habar gidirhaana Soomaaliya muuqaalkaas wixii daawanaa sheergareeya isaga guryaha ugu geeyay niman laga tira badan yahay oo midga iyo tumaalo leh in maalintii la arko lagu soo weeraro laguna argoofo laascaano waxaan aaminsanahay dagaalka isaaq ku soo qaaday laascaano inuu ku baaba'ayo ku jabay warinkaanu hadduu bahol in ku wado iska qabta oo ninka iska qabta warinka iska qabta waa isaaq saatan ma aha jirin waa meeshii qabiile ku baabi'i jirtay qabiilkii baaba'a meeshuu ku baaba'ayo caawa taagantiina isdaba qabtaan leey oday nabadoonana oo isaaq waa aqoon jiray oo wala macaabili jiray walaalo fiican ay ahaayeen niman nabadoonyahay ahaayeen niman wax yaqaanay ahaayeen Soomaaliya 500 oo sano ka horeeyay war caawan eberaatiin seero war isdaba qabta oo heshiiye war miyaa wax dhiig la ku arag war isdaba qabta warinka war tagte war dagaalka laascaan oo dan kuma jirto waa ku baaba'eydin oo rafaad waa ku ceeboobeydin oo dawladnimadiina ku dhimee muuse waxaan leeyahay dadka laga tirada badan yahay oo nooc walba leh oo dagaalka ku argoofayo aakhirana waa lagu la xisaabtamaa adduunkana daday ka dhasheen dagaalka muuse soo cilaamiyay difaac ka gala dadka maalintii la arko in kula dagaalamaya oo maalinta arka keenayo waa dadka laga tirada badan yahay jooga dharbaaxa iska dhiciyaan leeyahay niman dagaalamaatihiin iska dhiciyaan in leeyahay saddex madluucan ka hadlaya qodobadan ka hadlayo mid waa isaaq midna waa dhulbahanti midna waa ugaasiyadii nabadda raadiyay nimankii dhulbahanti deegaamada lagu leynayo isaaq dagaalka kuma wada jiro waxaan ugu maqaalaa garxajis inuusan ku jirin in niman laga tira badan yahay oo midga iyo tumaalo leh in maalintii la arko lagu soo weeraro laguna argoofo laascaano ay ugu maqaalaa oo muuse biixi isku soo aruuriyo nimankii dagaalami jiray oo isaaq oo la yaqaanay dagaalka kuma jiraan saasay ugu maqaalaa waxaan leeyahay muuse waxaan leeyahay dadka laga tirada badan yahay oo nooc walba leh oo dagaalka ku argoofayo aakhirana waa lagu la xisaabtamaa adduunkana daday ka dhasheen dadkii ka dhashana waa ka hadli doonaa ka hadleenaan leeyahay baaqaan u dirayaa ha ka hadleen dadkooda meesha lagu argoofayo ha ka hadleen dadkii ay ka soo jeedaan dhulbahanta waxaan leeyahay duulaanka oo cilaamiyey ninka militariga u sareeyay dagaalka muuse soo cilaamiyey difaac ka gala dadka maalintii la arko in kula dagaalamaya oo maalinta arka keenayo waa dadka laga tirada badan yahay jooga dharbaaxa iska dhiciyaan leeyahay niman dagaalamaatihiin iska dhiciyaan in leeyahay isaaqna waxaa ku qasbaya nimanka garxajisa u dagaalami jiray nimanka kaleeto waa reer magaal iyo reer beerood iyo reer xeebood nimankii dagaalami jiray dagaalka kuma jiraan marka inay dadkaas soo jeega dharbaaxaan oo dadka dagaalka ku laayaan oo geliyaan taasaa ku qasbee muuse biixi iyo isaaq waxay soo geliyeen dadka laga tirada badan yahay sida tumaalada iyo midgaha iyo waxa dhan iyo lafaha laga tirada badan yahay xagay soo geliyeen waxay soo geliyeen dagaalka laascaano dee ayagaa ku kala maqan waa diideen nimankaas waa danahood waxaan nooma qalmay dheheen dagaal qabiilo nooma qalmay dheheen wakaas waxa uu gacan geliyay dad dagaalama maahan waa dad la soo qasbay dadka loo keenay isaaqo dhulbahanta nimanka loo keenay oo isaaq keeneen muuse biixi keenay niman dagaalama maaha dhulbahanta iyagu maxaan ka naqaanaa dhulbahanta waxaa laga yaqaanaa waa niman geesiyaala waa nimankii cabdilla xasan intuu carrida dhan sahnigay oo saldhigga ka dhigtay oo ingiriisku jebiyey waa niman dagaalama marka waxaan u dirayaa dagaalka oo ninka militariga cilaamiyey muuse biixi oo ku soo socdo bisha barakaysan difaacada ka gala isaaq waxay wadaan afweyne waagu dawladii dhexe
waagii isaaq argooftay saas lagu duulay. oo lagu duulay dawladday diideen taladii afweynay diideen isaguna waa ku duulay daaradhaan iyaguna ugu soo duuleen ayagoo argoosanaya dagaalka laascaano isaaq ka wado waa argoosigii 91kii oo ninka la yiraahdo afweyne ku qaaday waxaan aaminsana dagaalka isaaq ku soo qaaday laascaano inuu ku baaba'ayo ku jabaa waxaan ku sababaynaa raggii dagaalami jiraa ka baxay dagaalka waxa weeye ugaasyadu waa niman sharaf leh waa niman waqooyi koonfur oo dhan soo cilaantay waa niman ugaasiyaa nabaddu waa wax fiican nabaday wadaan allaha la garab galo waa wax fiican laakiin anigu waxaan qabaa ra'lihaantayda meeshay laascaano iyo garowe ka degeen laascaano meeshay ka degeen iyo garowe inay isaaq ku hormaraan oo isaaq iyaga dhexdooda ayagoon marka hore dhulbahanta u soo jeesan dhulbahanta iyagoon u soo jeesan inay isaaq ay ku hormaraan oo dhexdooda heshiisiiyaan isaaqoo heshiisa inay markaas nabad u soo jeestaan aniga saasaa ila habbooneed wakaa annaka hadda dawladnimo nagu darsadaan dan nooma ahan dhegayso waa niman iriroon ku xisaabtamayno oo dawladnimada ay noo qabtaan aan ka midaannahoo waxaan degannahay ari caddeeye aniga kiishlaha caawa meesha meydyaha ka hadlaa ari caddeeyaan degana nin habargidirahaana dawladnimada hargeysa ka dhacda barkaygaan leeyahay walaalahay marka codsi waxaan u soo jeedinaa bisha ramadaan falligeeda oo weliba ugu ducaynaa walaalahay inay dhexdooda ka heshiiyaan dagaalada foosha xumoo qabiilkana iska daayaan ay isbaadi goobaan waxooda sharafkoodii inay soo ceshadaan aan ugu baaqayaa nimankaasaan aqaanaa garxajis waa nimanka isaaq ugu badan miya waa nimanka ugu badan oo u dagaalamo ugu xooga badan waa garxajis waxaan hawada marinaa isaaq waa nimanka ugu sharafka badan Soomaaliya ahaayeen nimanka ugu codka dheer ahaayeen nimanka ugu reer magaalsanay ahaayeen nimanka ugu siyaasadda badan ahaayeen waxaan leeyahay qabiil hadduu baaba'ayo meeshii lagu arki jiray caawa marayaan isaaq walaalahay waxaan leeyahay isdaba qabteen oo walaalayaal isdaba qabto wallaahi billaahi tallaahi nagaatiin meel cilaaha taagantiin waa baaba'deen sharafadiinii iyo wajigiinii iyo wixii laydinku yaqaanay iyo dhaqankiinii heshiiyoo soo ceshadaan leeyahay war isaaqow isdaba qabo oo isaaqow isdaba qabo oo ilma adeeryaal isdaba qabta waa dagaalka laascaanood oo maalintii arkay ku baaba'ayday sharaf iyo waji ma ahan ceebow iyo war heshiiya war dawladnimadiinii raadsada war isdaba qabta wax dad in sheego waxa in kaga fiican adinkoo dhexdiina ka heshiiyo isdaba qabto nidaamkiina raadsada war ninkan hadduu bahol in ku wado iska qabta oo ninka iska qabta war ninka iska qabta waa isaaqsaatan ma aha jirin waa meeshii qabiile ku baabi'i jirtay qabiilkii baabaa meeshuu ku baaba'ayo caawa taagantiina isdaba qabtaan leeyahay muuqaalkan sheergareeya dhammaantiin fiirsada arka waa guubaaba walaal waa jacayl walaal waa isaaq aan waay ilma adeerayaal oday nabadoonaana oo isaaq waa aqoon jiray oo waa la macaabili jiray walaalo fiicanay ahaayeen niman nabadoonyahay ahaayeen niman wax yaqaanay ahaayeen Soomaaliya 500 sano ka horreeyay war caawana eberaatiin seero war isdaba qabta oo heshiiya war miyaa wax dhiig la ku arag war isdaba qabta war tagte war dagaalka laascaano dan kuma jirto waa ku baaba'aydiin oo rafaad waa ku ceeboobaydiin oo dawladnimadiina ku dhimee isdaba qabtaan in leeyahay saasaan in dirbaaqaas Soomaaliya muuqaalkaas wixii daawanaa sheergareeya isaga guryaha ugu geeyay war isaga isdaba qabto dhexdiisa iska daba qaba kara hadduu heshiiyo ceebtiis waa yaraanee heshiiya dhexdiina ka heshiiye